الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. موضوعaynu ku soo jiray baynu insha Allah sii wadaynaa inkastoo kale mawduucu inuu yara dheeraaday. sababtuna waxay tahay mawduuca ayaa kale iska ballaaran waana mawduuc waasica, marka wuxuu u baahan yahay kolley fadhiyo kala duwan buu u baahan yahay. bal caawa insha allahu tacaala waxaynu gelaynaa fadhigii saddexaad ee mawduucaynu ku gelayno. mawduucaynu ka hadlaynaa waa mawduuc khatar ah. wuxuu ku saabsan yahay gaalow la gaaloobo oo diintii laga baxo oo ilaahayba la dafiro. marka waa arrin aad iyo aad u weyn oo mudan muhiimadiisa in la siiyo. dhowr qodob baynu kolley caawa ka hadli doonnaa insha allahu tacaala. qodobka koowaad waxaan ku bilaabayaa talo ku saabsan in la iska ilaaliyo shubuhaadka arrinkaa khuseeya. oo dad baa waxaa ku qancay doonaya inay faafiyaan, marka waana arrin diintii weeraraya oo qofka diintii ka saaraya. qalbiyaduna waa isbedbedelaan. ina alquluuba bayna usbucayni min asaabici araxmaani yuqallibuha kayfa yashaa ayuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. qalbiyadu waxay ku sugan yihiin laba farood oo faraha ilaahay ka mida dhexdooday ku sugan yihiin. ilaahay wuxuu u gedgediyaa siduu doono inuu u gedgediyaa. markaa ruuxu waa inuu qalbigiisa ilaashadaa, khatartaana iska jiraa. waxaynu garan karnaa waxyaalaha dhibta leh in markaa laga dheeraado. masalan, waxaynu naqaannaa cudurrada faafa in aad looga taxadiro la yska jiro. beryo dhoweed waa garanaysaan cudurkii koroonaha ayaa aad iyo aad caalamka looga digay, waddannadiina kala xidhay. waa tii la isu socon waayey, waa tii dhul badan shaqooyinkii la fasaxay, wax dhigashadii la joojiyey, meelihii la isugu imanayey la kala tegey, gaadiid socdo la waayey. waxaa sidaa loo samaynayaa waa maxay? waa faafitaanka cudurkaasi faafaya laga taxadirayaa oo laga fogaanaya, laga dheeraanaya sababtii uu ku faafayey. waa arrin caafimaadka lagu yaqaan, sharciguna hore inoogu sheegay. kaasoo keliya ma aha, xanuunnada kale faafaana waa la mid. hadday tahay tiibayda, hadday tahay aydhiiska, hadday tahay daacuunnada, xanuunnada iyo xanuunnada la midka aba aad iyo aad baa looga fogaadaa asbaabta uu ku faafayo, oo markaa dadka la yidhaha kala fogaada. waa taxadir laga taxadirayo. waxaa la yidhaha xajri sixi, karantiimada caafimaadkaa la yidhahdaa. xanuunnada halistee noocaasoo kale a ruuxii qaba dadka markaa in ay iska ilaaliyaan oo laga karantiimeeyo ayaa saxdu tahay. waana arrin sharcigu hore inoogu sheegay. waxay ka mid tahay waxyaalaha caddaynaya diinta xaqnimadeeda. waayo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyadaanu markaa waxbarasho uu galay iyo jaamicaad uu galay iyo ciduu wax ka bartay oo bini aadama aan la ogsoonayn, bale uu ahaa ummi aan waxna qorin, sadarna waxba ka akhriyin. haddii la odhan lahaa kutubuu taalacday, waxba ma qori jirin, sadarna waxba kama akhri jirin. haddana hore wuxuu u sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam laa yuuradu mumridun calaa musixin, yacnii in markaa
xoolaha caafimaadka qaba iyo kuwa cudurka qaba inaan la isku aroorin. wuxuu sheegay judaamka ruuxa qaba in la iska ilaaliyo laga dheeraado. fira min almajduumi firaaraka min alasad. nin judaam qaba ayaa nebiga sala allahu alayh wasalam u yimi isagoo doonaaya inuu bayco la galo. nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam, irjic faqad baayacnaak. halkaa ka noqo, waa kula baayactanno baycadu halkaasay kuugu timi, ee halkaa ka noqo. waxay taasi tilmaamaysaa in la iska ilaaliyo. marka ruuxu isagoo caafimaad qaba ayuu haddana cudurka ciddii qabay iska jirayaa oo ka fogaanaya. dadka shubuhaadkani galeen ee waxaa ku qancay oo jiritaanka ilaahayba dafiray oo ka gaaloobay amaba ka shakiyey oo diimihii dhaleecaynaya oo ilaahay ka gaaloobay, waxay qabaan cudur ka daran cudurradii xisiga ahaa ee jidhka ku dhacayay cudur ka daran bay qabaan. aafa khatara ayaa xaggii diinta kaga dhacday. hadduu qofka cudur noocaasi ku dhaco, dee waa ka daran yahay cudurrada caadiga la yaqaano. waayo cudurka caadigae la yaqaanaa hadduu ugu bato qofka waa dilayaa biidni illaah. laakiin cudurkan xagga diinta kaga dhacaya qofka gaalnimada u sababaya ee uu ku gaaloobayaa, dhibtiisu kuma koobno keliya geeri, khasaare abadiyay sababaysaa. cudurka caadigaa hadduu dhinto ruuxii, dee waa ka ladnaaday, dhib damboo daba soconaysa markaa waxba ma laha. laakiin hadduu gaalnimo ku dhinto, dee khasaare abadiyah iyo naar joogta ah ayuu markaa gelayaa. marka waa arrin aad iyo aad u khatara, marka aad in laysaga jiro aad looga fogaado weeye. sharciguna waa inoo sheegaya waxyaalaha shubuhaadku cidday ku sugan yihiin in laga fogaado laga dheeraado. ha ahaadeen shubuhaadkaasi kuwa gaalnimada ah ama ha ahaadeen kuwa gaalnimada ka sokeeye bidcooyinka abe, in laga fogaadaa sharcigu inoo sheegaya. saaxiibka xumina qofka wuxuu u sababayaa oo uu halis u yahay inuu sababo khasaare. wa yowma yacaddu aldaalimu calaa yadayhi yaquulu yaa laytanii ittakhadtu maca alrasuuli sabiila yaa waylataa laytanii lam attakhid fulaanan khaliila laqad adallanii can aldikri bacda id jaa'anii wa kaana ashaytaanu lilinsaani khaduula. allah wuxuu inoo sheegayaa ka daalimka ahi aakhiro inuu isciilkaambiyayo oo ciil daraaddeed gacmaha uu iskoogoosanayo. wuxuu ku calacalayaa oo jeclaysanayaa maa rasuulka aan raacoo waddadiisii waddo ka yeesho. yaa laytanii ittakhadtu maca alrasuuli sabiila. waa fursad seegtay. sidaasuu maalintaa uu leeyahay alla jeclaan lahaayaa inaan rasuulka la jirkiisa waddadiisa aan waddo ka yeesho raaco. yaa waylataa laytanii lam attakhid fulaanan khaliila. alla maanan hebel ka yeelan lahayn, saaxiib maanan ka yeelan lahayn. hohya cakuya maxaa igu watay, maxaan saaxiib uga dhigta? markaa saaxiibka xun aakhiro waa la ysku cilkaambiyaa. sharcigu wuxuu ina amrayaa saaxiib wanaagsan in la yeesho, saaxiibka xunna la yska jiro. masalu jaliisi asaalix waljaliisi asuu ka xaamil ilmiski wa naafikhi ilkiir. nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau yidhi, ruuxa kula fadhiistee wanaagsan iyo ruuxa kula fadhiistee xun tusaalahoodu wuxuu ka kala dhigan yahay sidii ruux markaa miski udgoon xambaarsan. saaxiibka wanaagsan baa ka dhigan. ruuxa wanaagsane kula fadhiista wuxuu shabbahayaa kaa udgoonkiiyo miskiga sita. saaxiibka xumniyo wuxuu ka dhigan yahay ka dabka buufimada afuufaya. fa xaamilu lmiski ima an yuxdiyaka wa ima an tabtaaca minhu wa ima an tajida minhu riixan tayiba. ka miskiga sidaa ee udgoonkaa xambaarsani saddex mid weeye: inuu wax ka mida udgoonka ku siiyo, iyo inaad wax ka mida ka iibsato, iyo inaad udgoon wanaagsan
oo ka soo kankamaya aad hesho yacni mar walba waad ku intifaacaysaa dhibi kaaga iman mayso saaxiibka xumina wuxuu ka dhigan yahay ka naafikhi ilkiir sida dabka buufimadaa ka afuufaya kaasina waxa weeye ama waa inuu maryaha kaa gubo ama waa inaad ur xun ka hesho marka mar walba dhib baa kaaga imanaysa in laga taxadiro markaa weeyi ayaan darro waxa ah dadka qaarkood oo iimaankii ku sugan oo daacadii iyo wanaaggii ku sugan iyo haddana inay u faafiyaan dadka shubahaadkaa gaalnimadaa ku hadlaya inay wax u faafiyaan cala sabiili tacajub oo laga yaabo markaa guruubba inuu ku diro ama saaxiibadii inuu u diro isagoo le markaa la yaaba waa arrin ayaan darro ah shaygu hadduu wax xun yahay lagama qayb qaato faafintiisa lagama qayb qaato bal haddii sababtaada dad ku lumaan ka warran oo ciddaad u dirtay cid ka midii ay markaa waxaas ku lumaan soo adigana dhib kaaga iman mayso shaygu hadduu dembi yahay lagama qayb qaato waa laga taxadiraa inaad dadka u sii gudbiso waa inaad iska jirtaa haddii kale dee ilxaad faafintii baad ka qayb qaadanaysaa oo aad caawinaysaa mar labaadkana waa inaan markaa la dhegaysanay laga fogaadaa oo la yska ilaaliyaa waayo khayr laga heli maayo wanaaggaad ka helaysaa maxay tahay nin odhanaya ilaahay ma jiro khaaliqa abuuray makhluuqaadkanna ma jiro khayrka laga rajaynayaa muxuu yahay wanaaggaase aad ka helaysaa maxay tahay marka waa in la yska jira aad iyo aad la ysaga ilaaliyaa dadka uu soo codsanayo ee majmuucada ma kugu darsada ama guruubka waa inaan laga yeelin khayru kaala maqan yahay ma jiro wanaagaad ka helaysaana ma jirto inaad ka aqbasho guruubka inuu kugu darsadaana nooc dhiirigelinay isaga u tahay saas aawadeed waa inaan la aqbalin waa in laga fogaadaa waa in laga dheeraadaa aad iyo aad la ysaga ilaaliyaa khayrku wuxuu ku jiraa diinta ayuu ku jiraa taa macnaheedu ma aha marka la odhanaayo khayrku diintuu ku jiraa ee waxa markaa diindarrada iyo gaalnimada kuu sababaya ha dhegaysanin in diintu marka waxa weeye marka ay daciif tahay ama xujo iyo daliil ayna jirin diintu waa caddahay inay xaq tahay waa caddahay daliilada ku tusinaya jiritaanka ilaahayna waa badan yihiin adilada caqliga iyo fitrada abuurka bini aadamka laftiisay ku abuuran tahay inuu khaaliq jiro oo makhluuqaadkana ayna iswadin weliba khaaliqaasi inuu waaxid yahay ka makhluuqaadka abuuray mid qura inuu yahay waayo nidaam keliyay ku wada socdaan wax ishirdiyaya oo iska hor imanaya ma aha makhluuquna inuu iska abuurmaa ma dhici karto laabudda lahu min khaaliq waxaa lagama maarmaana cid abuurtay inay jirto khaaliquna inuu waaxid yahay baa lagama maarmaana haddii kale nidaamku sidan kuma socdeen mana hagaageen ma ittakhada allahu min waladin wama kaana macahu min ilaah idan ladahaba kullu ilaahin bima khalaqa walacala bacduhum cala bacd fitrada aadamigay ku abuuran tahay inuu khaaliq jiro fitrat allahi alatii fatara annaasa calayha laa tabdiila likhalqi illah adilada sharciga ayaa ku tusinaya adilada caqligaa ku tusinaya nidaamkan caalamku ku socdaa cid nidaamisay waa inay jirtaa cid abuurtay oo jir siisayna waa inay jirtaa inuu isagu isjirsiiyana ma dhici karo ma dhici karto inay isjirsiyaan masalada horeynuga soo hadallay ha yeeshee sidaynu tusaalihii ku tilmaannay ruuxu isagoo caafimaad qaba ayaa haddana asbaabtii cudurka in laga taxadiraa caqliga iyo sharciga mid waliba uu keensanaya qalbiyadaana isgedgediyaya oo qalbiyadu waa taqallubaan oo waa isbedbedelaan shaydaankuna dadka waa waswaasinayaa
sidaas aawadeed assalaamatu laa yucaadiluhaa shay, nabadgelyada waxba uma dhigmaan. cudurka iska ilaalintiisa ka fiican iska daawayntiisa. alwiqaayatu khayru min alcilaaj. marka hore cudurka inaad iska jirtaa waxay ka fiican tahay intaad isu bandhigto inaad doonto inaad iska dawayso. qodobka labaadaan tilmaamayaa waxay tahay waa waana aan u jeedinayo kuwa shubahaadkaasi galeen ee mulxidiinta ee ilaahay dafiray, baan in yar oo waana ah oo kelmada ku odhanaya. arrinka ku saabsan dafiraadda ilaahay la dafiraayo, hadduu yahay nooca odhanaaya maba jiro, ilaahay maba jiro odhanaya hadduu yahay, iyo hadduu yahay nooca odhanaya anuu ma garanayo inuu jiro iyo inaanu jirin midnaba, kuu doonaba ha noqdee ma'aalka isku mid bay noqonayaan, isku meel bay tegayaan. waayo mid waliba ilaahay ma rumayn, labada midna ilaahay ma rumayn. mid waliba rabbi waa ka gaaloobay. hadduu sheeganayo inuu ka shakisan yahay iyo hadduu sheeganaayo inuu goynayo leeyahay maba jiro, labada nooc mid waliba waa kufri, mid waliba waa gaalnimo. ma'aalkana waxay noqonayaan inay isku mid yihiin oo waxba kuma kala duwana. kuwa sheeganaya oo odhanaya anuu ma garanayo inuu jiro iyo inaanu jirin, qaar badani afka baarkiisay sidaa ka odhanayaan, laakiin xaqiiqa ahaan waxay tahay inay dafirayaan jiritaanka ilaahay. waxaana la arkay qaar badan oo noocaas odhanaya anuu ma garanayo inuu jiro iyo inaanu jirin, hadalladooda kale markii loo noqday oo meelahooda la baadhay inay ka soo baxday inaanu qirsanayn ee uu leeyahay ma jiro, ee uu ku afgobaadsanayo inuu leeyahay anugu labada midna garan maayo. arrinka hadduu yidhaahdo anuu ma garanaayo horaynu soo sheegnay, oo dee wuxuu qiranayaa waxay tahay jahli iyo garasho la'aan, cilmi iyo aqoon uu ku sheegtay ma jirto. hadduu markaa yidhaahdo makhluuqaadkan cid abuurtay ma jirto, hadduu yidhaahdo waayo daliil baan loo haynin oo wax caddaynayaa ma jiro in cidi abuurtay, marba haddaan daliil loo haynaa ma jiro. sidaa markuu yidhaahdo waxaa loogu jawaabayaa waa midda koowaade, arrinka uu leeyahay daliil looma hayo, ma caddaynayso, ma sheegayso dee inaanu markaa jirin. sheegista uu sheegaayo uu leeyahay daliil looma hayana inaanu daliil u haynin caddayn mayso inaanu jirin. ghaayatu maa fi lamri waa inuu leeyahay garan maayo. nafyigiisu waa nafyu cilmi, waxaana la yidhaahdaa cadamu daliili laysa daliilan cala alcadam. inaan shay caddayn loo haynin ma aha in caddayn loo hayo in la og yahay inaanu shaygaasi jirin. masalan, haddaanad ogayn gidaarkan dabadiisa in cidi ku sugan tahay oo aad tidhaahdo wax caddayna uma hayo gidaarka dabadiisa in cidi joogto, miyay keensanaysaa inaad tidhahdo cidi ma joogto waayo daliil uma hayo inay joogto cidi? caqlan waxaa la garanayaa inaanay ka dhalanaynin daliil arrinkaa inaanu ahaynin inuu diido oo nafyo oo yidhaahdo maba jiro inaanay ka imanayn. masalan, ruux baa waxaa lagu yidhi hebel ma tukadaa, markaasuu wuxuu yidhi wax caddayna uma hayo inuu tukado. miyay la macno tahay waxaan ogahay inaanu tukan? laba shay oo isku macnaa miya? inaanu isagu ogayn oo caddayn u haynin inaanu tukani miyay sheegaysaa ficlan hebel inaanu tukan? masalan, qaarada amriika la yidhaahdo, amriika waabaan la ogayn inay jirta baa la yidhi, beri dambaa la helay oo caalamkan kale dadka ku nooli ay ogaadeen qaaraddaasi inay jirto. intii hore wax daliila umay hayn in qaaraddaasi jirto. dee mar haddaynay ogayn oo caddayn aynay u haynin inay jirto wakhtigaas, ma waxaan jirin bay ahayd? maye way jirta iyagaan ogayn. waxaana la yidhahaa nafyu lcilmi laysa cilman binnafyi.
ama cadamu lcilmi laysa cilman bilcadam shay marka waxa weeye inaan la ogsoonayn yacni ma aha in la ogsoon yahay inaan u jirin inay la mid tahay nasiixada aynu gudbinaynaa waxay tahay ruuxa mulxidka ahi fitradiisa waxa ku abuuran inuu khaaliqu jiro saas aawadeed wakhtiyada kurubaadka iyo dhibaatadu ku dhacaan xagga ilaahay buu argagaxayaa markuu dhibaatoodo fitrada wuu inkirayaayo waa diidayaa waxay u tilmaamaysee fitradiisa waxa ku abuuran jiritaanka ilaahay ayaa ku abuuran naftiisa oo jirkiisa ku abuuran fitrat allahi alatii fatara annaasa calayha laa tabdiila likhalqi illaah had ya jeer waxay dalbayaan waxyaalo badan oo umuura abay dalbayaan oo mucjizaada oo ay leeyihiin waxaan ha la keeno oo waxaan ha la keeno oo waxaan ha la keeno oo waxaan ha la keeno waxaasina wax soo afgo'aya ma aha ilaa umuuro mustaxiilaad ay dalbanayaan waxay uga jeedaanna waa tacanut iyo madaxadayg waa garanaysaan qur'aanka inta ku sugan ashyaada ay dalbadeen qofku hadduu xaqdoon yahay awalu daliil baa qancinaya daliilka ugu horreeyaa qancinaya laakiin haddaanu xaqdoon ahayne cinaad iyo madaxadayg ay ka tahay haddii boqolaal daliil la tuso oo boqolaal mucjiso la tuso marnaba mid hoggaansamaya maaha nebigana calayhi salaatu wasalaam mucjizaad badan baa la siiyey wax ka mida waa sheegi doonnaa insha allah mucjizaad fara badan ayaa nebiga la siiyey ilaa ahlucilmiga qaarkood ay yidhaahdeen nebiga kun mucjizaa la siiyey qayb ka mida insha allahu tacala waa tilmaami doonaa umuuraha ay dalbanayaan waxay uga jeedaan markaa jikaar bay uga jeedaan iyo cinaad iyo madaxadayn masalan waxay ku yidhaahdeen qolyihii ahlu kitaabka ahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam kitaab samada ka soo deji horena nebi muuse waxay ugu yidhahdeen ilaahay na tusiyo indhahayaga aanu ku aragno yas'aluka ahlulkitaabi an tunazila calayhim kitaaban min alsamaa faqad sa'aluu muusa akbara min dalik faqaaluu arina allaha jahratan faakhadathum alsaaciqatu bidulmihim ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا نبي موسى waxaa bay ku yidhaahdeen indhaha nagu tusiyo indhaha iyagu ha arkaan ilaahay gaaladii carbeed sidaas si shabbahday markaa nebiga weydiisteen oo yacni markaa umuuro markaa badan oo mutacadiday markaa yidhaahdeen waa in saasi dhacdaa oo saasi dhacdaa oo saasi dhacdaa oo saasi dhacdaa waxay ku soo dareen aw taatiya biاllahi waalmalaa'ikati qabiila aw yakuuna laka baytun min zukhrufin aw tarqaa fi alsamaa'i walan nu'mina liruqiyika xataa tunazila calayna kitaaban naqra'u umuurihii ay codsadeen midh iyo laba iyo saddex iyo afartoonna kumay degin mar walbana waxay codsanayeen waxyaalo kale xaqdoon kamay ahayn way garanayeen in badanoo ka midii nebigu inuu markaa yahay nebi xaqa waa garanayeen laakiin cinaad iyo madaxadayg bay ka ahayd abujahl waa tii mar la weydiiyey oo lagu yidhi moxamed ma been buu sheegayaa markaasuu wuxuu uhi maya moxamed been sheegi maayo beenna ma yaqaan ha yeeshee qusay ibnu kilaab waa qolada uu nebigu ka dhashay calayhi salaatu wasalaam qusay ibnu kilaab waxay qaateen buu yidhi furihii kacbaday qaateen oo iyaga markaa kacbada furaheeda haya calankii quraysheed bay qaateen oo qurayshi calanka cidda u haysaa waa qusay ibnu kilaab bay ka mid yihiin cid kaloo calanka qaadi kartaa ma jirto waxay qaateen siqaayadii bay qaateen waraabintii xujaajta la waraabinayay qaateen ashyaa noocaasuu tahay annagii iyaguna waa tartannay buu yidhi reer bani makhsuum iyo markaa qusay ibnu kilaab bani qusay ibnu kilaab waa tartannay buu yidhi xataa kunna ka farasay rihaan ilaa aanu noqonnay laba farasoo kala bixi waayo sharadkii loo dhigay midna qaadan kari waaye ilaa aanu kala dheeran weyne
kadib bay waxay yidhaahdeen buu idhi minaa nabiyun yuuxaa min asamaa waxay yidhahdeen nebi baa annaga naga mida samada looga soo waxyoodo marka dadkii kale maxaa u hadhay buui ma iyagun baa la dabagelayaa wallaahi ma rumaynayno ilaa uu annagana naga soo baxo nebi samada looga soo waxyoodaa allah muxuu yidhi fainahum laa yukadibuunaka walaakina aldaalimiina biaayaati illaahi yajxaduun qalbiga kaa beenin maayaan laakiin kuwa daalimiinta ee xadgudbay yacni aayaadka ilahay bay dafirayaan afkay ka dafirayaan laakiin qalbiga kaama beeninayaan qalbiga waa ka garanayaan inaad run sheegayso macnuu saasuu dhacay marka waxay rabaan cinaadka iyo madaxadayga iyo jikaarka ay la imanayaan umuurihii haybiga ahaa in laga dhigo wax mushaahadoo la arkayo markaasaa waxay leeyihiin ilaahay ha la arko markaannu aragnaannu rumaynaynaa ruuxu hadduu markaa xaqdoon yahay oo waxa saxdaa doonayo inuu markaa raaco saynu soo sheegnay daliilka ugu horreeyaa ku filan laakiin hadduu ruuxu markaa jikaar iyo madaxadayg iyo cinaad uga jeedo kun daliil haddii la tuso iyo kun mucjizo haddii la tuso wax alla wuxuu aqbalayaa ma jiro dadka waxa lagu imtixaanay waxay tahay waxa haybigaa in la rumeeyo ayaa lagu imtixaanay shayga xisiga la arkaayo waa la wada rumeeyaa cidina ma diido iminka geeridu waa shay maxsuusa oo la haleelayo xawaasta lagu haleelayo iyo dareemayaasha saas aawadeed gaal iyo muslimba waa qirsan yihiin geeriyi inay jirto laa axada yunkiru cid dafiraysaa ma jirto aladiina yu'minuuna bilghayb waxa dadku ku kala baxayaan oo qaarna rumaynayaan qaarna aynay rumaynaynin waa maxay waa in haybka la rumeeyo weeye taasaa lagu kala baxayaa haybkana xataa kuwa mulxidiinta ahi ee ilaahay dafiraya dee qaybo badan bay rumaysan yihiin waxyaalo badan oo hayb ah bay rumaysan yihiin waxay odhanayaan waqhtiyada qaarkood ma iimaan indhala ayaannu iska rumaynaa waxaa la odhanayaa nebiga in la rumeeyaa iimaan indhala maaha ee iimaan indhala adaa ku jira iimaan indhala waxaad ugu jirtaa waxyaalo badan oo hayba oo aanad daliil u haynin laa caqli walaa sharci baad rumaysan tahay waxaa ka mid a in waxa weeye dadku ay ka yimaadeen daayeero ay ka yimaadeen oo noolahu markii hore uu soo kala tatawuray oo mar waxa weeye kalluun ahaa oo mar markaa berri maa'i ahaa yacni markaa waxyaalaha markaa marna badda gala marna ka soo baxa ee berriga ku noolaada markii kale waxyaalaha markaa waxa naasalayda uu ahaa markii dambe uu ahaa markaa shimbira uu ahaa akhiiran markii dambe uu ku dambeeyey marka waxaan aadamiga tatawur noocaasa inay soo qaateen baad rumaysan tahay waxaad aragtayna maaha nin baa fekeray tashaabuh buu arkay wuxuu yidhi markaa xoogaa isu ekaanshaa jira dabeedna waa kuu sheegay dabeedna waad iska rumaysa nebigu warkuu kuu sheegayna waa diidaysaa daarwiin wuxuu kuu sheegay oo aan wax ii loogu sheegina isagu wuxuu ka fekeray ay tahay waad rumaysay hayb baad rumaysay ciddii haybka u aqoonta lahayd aynay ka warramin isaguna uu malamalaynaayo wuxuu yaqiinsan yahay maaha wuxuu leeyahay waxaa laga yaabaa inay saa ahayd waxaa laga yaabaa inay saa ahayd waa wax markaa uu isagu malamalaynayo wey hayb baad rumaysan tahay adigu aanad arag daliilla aanad u hayn inuu khalqigu dhammaantii ahaan jiray dhibic yar dabeedna dhibicdii qaraxday oo ay noqotay makhluuqaadkaa faraha badan le ay noqotay marka iimaan indhala baad ku rumaysan tahay sharcina kuuma sheegin waxaad aragtayna maaha iimaan indhala baad ku rumaysan tahay in waxa weeye wax aan noolayni inay mar keliya isu rogeen wax nool iyadoo aan cidi abuurin
waa arrin ghaybi ah iimaan indhala baanu ku rumaysantay waxyiga allah soo dejiyey ee ilaahay ghaybka ogaaye wax walba ogaa warranka uu ka warramay siduu uga warramay loo qaatay markii rasuulku caddeeyey markii rasuulka adillo caddaynaysa rasuulnimadiisa ay la helay oo mucjizaadkii markaa la helay oo la aqoonsaday rasuul dhaba inuu yahay warka uu ilaahay ka keenay rumaysadka la rumaystay iimaan indhala ma aha iimaan indhala waxa ah faylasuufka intuu fekeray wuxuu kugu yidhi aad iska ictiqaadiso iska rumaysay waxaasina aynay ahayn waxaad aragtay iyo waxaad og tahay toona ee hebel baa yidhi aad u qaadatay ugu qanacday waxaynu garanaynaa ruux kastoo nool shay kastoo makhluuqoo nooli in lagama maarmaan ay tahay inuu geeri ku dambaynaayo gaal iyo muslimna waa qirsan yihin mid waliba inuu dhimanaayo waa qirsan yihin geeridana lagama baxsan karo in kastaba ha la noolaadee mid laga fakan kara ma aha aynamaa takuunuu yudrikkum almawt walow kuntum fii buruujin mushayadah meel kastaa ku sugantihiin geeridu waa idin haleelaysaa guryo la adkeeyey ama la dhaadheereeyey xataa haddaa ku sugantihiin geeridu waa idin haleelaysa waa idin imanaysa qul ina almawta aladii tafiruuna minhu fainahu mulaaqiikum geeridaa ka cararaysaan waa idinla kulmaysaa midaad geerida iska baajin karta ma aha ilaahayna waxa uu ku yidhi gaalada markuu la hadlayey isagoo taxaddi ku samaynaya oo caraynaya falowlaa in kuntum ghayra madiiniin tarjicuunaha in kuntum saadiqiin haddaad tihiin qaar aan la xisaabayn oo la abaal marinayn haddaad tihiin maxaa loo waayey inaad soo celisaan naftan baxaysa inaad dib u soo celisaan maxaa loo waayey oo qofka ay ka baxaysa aad ku celisaan oo nolosha u baaqi yeeshaan yacni ku celiya haddaad run sheegaysaan haddaad dhab ku sheegaysaan sheegashadiinna ah xisaabi ma jirto soo saar ma jiro abaalmarini ma jirto geeridaasay umuuruhu ku dhammaanayaan wax laysa soo saarayaana ma jiro ciddii ajashiisu dhammaatay nolosha ku soo celiya geeridana u diida nafaha waxaa lagu qabtay idan la'aan iyadoo aan ruuxa waxba laga weydiin baa laga qabanaya oo ruux walba nafta laga dhufanaya marka haddaa leedihiin yacni ma jirto xisaab iyo abaalmarintoonna ma jirto nafta ku celiya kuma celin karaan geeridaa khasabka qof waliba ku dhimanaya waxay caddaynaysaa awood makhluuqaadkan ka sarraysa inay jirto oo ka baawar badan oo ka awood badan oo aynay dhici karin in lays hortaagaa dhammaanna makhluuqaadku yada u khuduucayaan oo u dulloobayaan sidaa geeridaba ay ugu dulloobeen bay si walba ugu dullaysay ruux ka fakan karaana aanu jirin awooddaasi waxa weeye waa awoodda ilaahay waa quwatu alkhaaliqi alcaliimi alqadiir alxakiimi almuxyi almumiit waa awoodda khaaliqa cilmiga badan ee khibradda badan ee awoodda badan ee xikmadda badan ee wax nooleeye wax dila haddaad diiddeen inaa u khuduucdaan oo isu dullaysaan geerida isu diida ilaaba ilaa geerida ilaahay waa keenaya baawara iskaga baajisaan hadday jirto markaa beeniya aynay ahayn hoggaansama sidaa geeridaba ugu dulloobaysaan si kastaa u gaalowdaan fircawn kama gaalnimo badnidin fircawn waa ki yidhi ana rabbukum alaclaa rabbigiinna korraynta badan baan ahay waa ki yidhi maa calimtu lakum min ilaahin hayrii ilaahaan aniga ahayn idinma ogi isagu waaba dafiray oo wuxuu yidhi markaa ilaahaan aniga ahayn idinma ogi anaa ilaahii ah ilaahnimadii u sheegtay fircawn baa sheeganaya waa u goodiyey cidda khilaafta oo markaa tidhaahda ilaah kalaa jiraannu rumaysannahay oo wuxuu uhi lain ittakhadta ilaahan hayrii laajcalannaka min almasjuuriin haddaad yeelato muusow ilaahaan aniga ahayn waxaan kaa yeelayaa kuwa markaa xabsidaayinka lagu xukumee jeelka ku abaada nimankii falalowyada ahaan jiray markay rumeeyeen nebi muuse calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi
aamantum lahu qabla an aadana lakum miyaa rumaysan intaan idiin fasixin ka hor deedna waa u hanjabo waa u goodiyey la uqaticanna aydiyakum arjulakum min khilaafin yacni waxaan u jarjari doonaa gacmihiinna iyo lugihiinnaan talantaalli u jarjari doonaa buu yidhi deedna waxaan idinku deldeli doonaa jirridaha geed timireedyadaan idinku deldeli doonaa si aa halkaa ugu baktidaan ugu dhimataan saasuu ku hanjabayey heerkaasuu gaadhay xadgudubkiisa iyo gaalnimadiisa marka si kastaa u gaalowdaan oo u kibirtaan kama gaalnimo badniyin fircawn muxuu ku dambeeyey markii la qabtay waa isdhiibay xataa idaa adrakahu algaraqu qaala aamantu annahu laa ilaaha ila aladii aamanat bihi banuu israa'iil wa ana min almuslimiin markii qaraqa lagu qabtay oo baddii inuu ku qarqoomo ay noqotay xaaladda noocaasa wuxuu ku dhawaaqay inuu yidhaahdo uu haabhaabto kelimaddii tawxiidka dabeedna wuxuu uhi laa ilaaha ila aladii aamanat bihi banuu israa'iila wa ana min almuslimiin muslimiintaan ka mid ahay waxaan rumeeyey buu yidhi ilaa xaq lagu caabudaa inaan u jirin mooyaane kii ay rumeeyeen reer banuu israa'iil muslimiintaanan ka mid ahay buu yidhi xaaladda noocaasi waxay ahayd xaalatu alqarqara xaaladdii naftu qabatay iimaan idiraariyuu ahaa oo dani ku khasabtay ah qad faata alawaan wakhtigii waa tegey fursaddii imtixaankuna waa dhammaatay adduunyada dadka waxaa loo keenay in lagu imtixaano amin baa loo yeelay imtixaankaas waxaa la yidhi imtixaankaasi wuxuu ku egyahay naftu intaynay soo gaadhin dhuunta inta ka horraysa imtixaanku markaa joogaa wuxuu wakhtigaas jawaabo ee la yimaado ayaa ruuxa anfacaya hadday naftu dhuunta soo gaadho wakhtii fursaddii imtixaanku waa dhammaatay warqadda laga qaban maayo in allaha yaqbalu tawbata alcabdi maa lam yuqarqir ilaahay toobadda addoonka waa aqbalaa intaan naftu dhuunta soo gaadhin waxaa lagu yidhi fircawn al'aana waqad casayta qabl wa kunta min almufsidiin ma haddaad rumaynaysaa yadaad hore u caasiday baad hadda rumaynaysaa miyaa oo aad mufsidiinta ka mid ahay wakhtiganna waa wakhti aan markaa towbadii waxba anfacayn mid walba marka lagu soo kadiyo naftu qabato waa isku dayaa markaa inuu ku dhawaaqo iimaanka towbad dani ku tidhiya inuu ku dhawaaqana waa isku dayaa falam yakun yanfacuhum iimaanuhum lammaa ra'w ba'sana war hooy intaanad wakhtigaa gaadhin sidii fircawn wakhtigaa iimaanka u haabhaaban waxaan ku anfacaynin maanta ha ku mashquulin iminkaad fursad haysataa war hoy ilaahay u noqo war hoy toobad keen war goor lagu qabanayo ma ogid goor lagu qabanayo ma ogid iminkaad joogtaa ammintii towbaddu ku anfici lahaydee toobadkeen ilaahay u soo noqo cinaadka iyo madaxadayga iyo jikaarka iyo gaalnimada iska daa kelmaddaa waxaan uga gudbayaa ilxaadka dadkan ku sugan aad iyo aad bay ula dagaalamaan diimaha ula dagaalamaan wax allo wixii diin oo dhan waa necab yihiin waa la dagaalamaya waxayse ugu sii necab yihiin diinta islaamka ayay u sii necab yihiin waxay isku dayayaan dadka dhammaan inay gaalaysiiyaan dagaal baynay diinta kula jiraan diimahoo dhan iyagoo kula jiray diinta islaamkana si gaara ugula sii jiraan hadda dadka markaa ilxaadka ah aadka ugu baaqa casrigan kuwa ugu sii sheegan waxaa ka mid a dukins ninka la yidhaahdo iyo sam haris iyo ayaa markaa ragga ugu sheegan ka mid a oo bugaagna arrinkaa ka qoray si waxa weeye markaa naf iska saarana arrinka noocaasa markaa waxa weeye aad iyo aad ugu dadaalay inay ula diraan diimahaba khaas ahaana diinta islaamka wuxuu yidhi maruu dukins hadlayey dagaallada iyo loolamada adduunyada ka dhacay badankoodu waxay ka yimaadeen diimahay ka yimaadeen buuri waxa dagaallo adduunyada ka dhacaya iyo loolamo badankoodu waxay ka yimaadeen diimaha
noocay doonaan ba ha noqdaane waddada keliya ee lagaga bixi karaa loolamada iyo dagaalladaasna waxa weeye afkaaraha la rumaysan yahay iyo diimaha gebigoodaba in laga tago kulligood hadalkiisa waxaa ka muuqata inuu dagaallada badankoodii adduunyada ka dhacay saaraayo diimaha taa aawadeedna uu leeyahay waddada lagaga bixi karaa waxa weeyaan ee nabadgeliya amnigu lagu heli karaa in diimahaba laga baxo laga takhalluso oo ilxaad iyo diin la'aan loo baxo warka noocaasee uu saa sheegayo waxaa ka hor imanaya waxa dagaalla adduunyada lagu dilay ee la yaqaano badankooda waxa dilay mulxidiin baa dilay ka soo qaad maw oo haysan jiray jaynaha intee dad u laayay sataaliin oo isaguna markaa haysan jiray ruushka labaduba laba mulxid bay ahaayeen wax diin la yidhaha may rumaysnayn goobaha diimaha waa duminayeen noocay doonaanba ha noqdaan ama kiristaan ha noqdaan ama islaam ha noqdaan goobaha lagu cibaadaysto masaajidda iyo kanaa'ista waa wada duminayeen dadkana waa laynayeen diin agtooda laguma soo qaadi kari jiro waxaanay ahaayeen mulxidiin ilaahay dafirsan oo le laa ilaah wax ilaah la yidhaha ma jiro labadooda keliya haddii la eego waxay dileen 94 malyan bay dileen oo aadamiga ka mid ah hadda kumaan kun ma aha 94 kun ha u qaadan waa 94 malyan ya hitler waxa uu sheegan jiray waagii hore markaa masiixi buu sheegan jiray yacni inuu kiristaan yahay buu sheegan jiray waagii hore laakiin bacdi waxay ku tiriyaan inuu markaa malaaxidada ka mid ahaa oo isaguna mulxid ahaa intee bini aadam u laayay oo weliba dab ku gubay dab qayb ka mida wuxuu ku gubayba dab ilaa 30 malyan dad gaadhaya ayuu isaguna laayay magac diimeedna waxba kuma dilay sam harris ninka la yidhaahdo 4 shakhsi oo aad ugu sheegan baa jira hadda marka ilxaadkan cusub oo la yidhaahdo alfursaan alarbaca a'imma hadda hogaamiyayaal ka ah 4taas waxaa ka mida sam harris baa ka mida dukins baa ka mida hitchinis mid la yidhahdaa ka mida daniel mid la yidhahdaa isaguna ka mida oo isagu markaa bakhtiyey 3 kale waa noolyihin sam harris waxa uu qoray oo uu yidhi dadka muslimiinta ah hadda waa ninkii imaamka u ahaa mulxidiinta raggii a'immadu ku jira hogaamiyayaasha ya aabbayaashiinni ilxaadkaa hadlaya oo hadalkan hadda sheegaya mulxidiinay waa sam harris wuxuu yidhi muslimiinta dhammaantood intay tiro la-eg yihiin nukliyar in lagu dhufto qumbula nawawiya oo dhammaan wada tirtiraysa si aan markaa qofba uga hadhin arrin la fogaysanaya maaha kulligood marka waxa waya in lagu dhufto nukliyar oo aan xabad laga reebin muslimiintu arrinka noocaasa may gaadhin mulxidiintu waxay marayaan inay markaa leeyihiin cidda markaa waxa weeye diimaha haysata in laga takhalluso khaas ahaan muslimiinta waa in markaa xabad aan laga reebin wuxuu kaloo yidhi masaa'isha qaarkood dadka ictiqaadsan waa sam harris baa odhanaya ictiqaadkaa ictiqaadsan yahay waxa ay rumaysan yihiin bas in lagu dilaa wuxuu suuroobi kartaa inuu noqdo arrin akhlaaqiyo akhlaaq ahaan fiican bas caqiidadiisa bas lagu dilo hadda ficiluu sameeye ma jiro yacni diin inuu ictiqaadsan yahay bas in lagu dilo waa arrin akhlaaqi ah ama akhlaaqi ahaan suuragala dhulkinis waxa la weydiiye lagu yidhi waa adiga leh waxa dagaalla adduunyada ka dhacay iyo loolamo diimaha u sababa marka waddannadii waxay ku sameeyaan qalaaqil iyo dhibaatooyin baa ka yimi waa adiga sidaas yadaa leh bal waxaad ka warrantaa sataaliin wuxuu sameeyey ka warran madaxweynihii ruushku muxuu falay sataaliin jaraa'imtii uu galay iyo dadku laayay malaayiinka ahaa ee faraha badnaa ka warran
wuxuu yidhi ilxaadku ma amrin inuu sidaa yeelo mulxid ha ahaado laakiin mabda' ilxaadoo keensaday ma jiro mar kale wuxuu yidhi wuxuu sidaa u yeelay isagu shaarubuu lahaa buuli yani waxay doonaan bay iskaga hadlayaan waxay doonaan ayay ku hadlayaan marka haddii la eego xagga yacni laynta iyo rabshadaha iyo baabi'inta iyo xasuuqa ay markaa rabaan ilxaadku waxa uu rabo wax la midi inaan u jirin bay taasi caddaynaysa xagga akhlaaqda ka warran ilxaadku aadamiga muxuu akhlaaq wanaagsan u gudbinayaa ilxaad akhlaaq ma leeyihi jawaabtu waxay tahay ilxaad akhlaaq ma leh wax ka xaaraansanna ma jiro bal aan weydiiye mulxidow wax kaa xaaraansani ma jiraan yaase kaa xaaraantinimay kulay ku tahay hooyadaa inaad fuusho wax ka xaaraani ma jiraan haddaad mulxid tahay ya ilxaadku akhlaaqda miyuu wanaajiyaa mise waa xumeeyaa masdarka akhlaaqda laga qaadanaya waa xaggii ma caqliga ma saad jeclaysataa ma bii'ada aad ku nooshahay iyo meesha aad ku nooshahayba iyo waxay qabaan ma ilbaxnimada casriga ma reer galbeedka ilbaxnimadooda ma qawaaniinta iyo dastuurada gaalada akhlaaqda laga qaataa ma diimaha laga qaataa ma hoggaamiyeyaasha ilxaadkaa laga qaataa haddaad tidhahdo hoggaamiyeyaasha ilxaadkaa laga qaadanayaa ma darwin baa akhlaaqda laga qaadanaya ma fairweed baa laga qaadanaya ma waxaa laga qaadanaya carol markis baa laga qaadanaya ma sataalin baa laga qaadanaya ma maw baa laga qaadanaya kuwa haddii laga yimaado ma kuwa hadda nool baa laga qaadanaya dukins iyo ka mid yihiin sam haris iyo ayaan xirsi magan iyo markaa waxa hitchinis ayaan hadda waxaa la geliyey meeshii uu joogay daniel uu joogay markuu dhintay iyadaa lagu bedelay saas aawadeed hoggaamiyeyaasha waaweyne ilxaadka hoggaamiya bay hadda shirarka la gashaa waxay ka mid tahay min alfursaan alarbaca xagga akhlaaqda laga qaadanaya waa xaggee akhlaaq nooceeya baa dadka ugu yeedhaysaa ma siday adiga kula tahaa ma siday dadka kale la tahayba haddaad tidhahdo caqligaa laga qaadanaya aan ku soo dhowaanayo cuquushu waa kala duwan yahay caqliyadu dadku isku caqli ma aha nin wax la quman baa nin kale la qalloocan wax adiga kula toosan baa nin kale la qalloocan wax nin kale la quman ayaa adigana kula qalloocan caqliga la raacayaa waa kii ma caqligaaga ma caqliga muslimka ma caqliga markaa waxa mulxidiinta ma caqliga kiristaanka caqliga la raacaya waa kii cuquusha hadday iskhilaafaan kee loo xukum tegayaa arrinkiisana lagu waayo shaki waxaan lahayn akhlaaq wanaagsan waxaa laga heli karaa diin samaawiya oo aan taxriif gelin baa akhlaaq wanaagsan laga heli karaa inta aynu sheegnay midnaba akhlaaq wanaagsan lagama heliyo haddii la yidhaahdo qawaaniinta gaalada ayaa marka akhlaaq wanaagsan maanta laga qaadanaya haddii la yidhaahdo dee qawaaniinta gaalo badani maanta ay ku dhaqmaan ee ay samaysteen waxuu fasaxayaa waxyaalo badan oo markaa waxa aan la aqbali karin hadda waddannada galbeedka waxay yidhaahdeen oo markaa agtooda aad iyo aad uga faafsan labada nin waa isguursan karaan labada dumarina waa isguursan karaan cid wax ka sheegi kartaana ma jirto qofka waddannada galbeedka jooga oo in laba nin isguursadaan wax ka sheega arrinka noocaasa wuxuu ku mutaysanaya ciqaab ya qawaaniin ahaan waxay banneeyeen qaarkood inay si caadiya isu guursadaan marka waxa weeye qolada isku noocaay liwaadkii in sharci laga dhigaa ma akhlaaq wanaagsan ba oo la yidhaha raggaa isguursanaya ama la yidhaha dumarkaa isguursanaya akhlaaq wanaagsan miya gaalada qaarkood maxaarimtoodii ayay guursadaan oo qabaan inuu walaashii ama hooyadii ama inantiisa fuulaa waxba kuma aha mana aha wax naadire waa wax markaa
yacni dadka qaarkood ay qabaan oo badanba. iminka majuusku qolada dabka caabuddaa caqliga waa leeyihiin, iyagoo haddana caqli leh dee waxay guursadaan maxaarimtooda si caadiyay u guursadaan. waata xadiiskii bukhaarigu sheegaayo inuu cumar ibnu khataab uu yidhi haddaa aragtaan laba majuusoo maxram isu ahoo isqaba haddaa aragtaan kala farqiya. bukhaarigay ku sugan tahay fii saxiix albukhaari. waa waxay diin ahaanba u qabaan. liwaadkii waxay leeyihiin jamciyaday leeyihiin, ururay leeyihiin. dad fara badan bay noqdeen waddannada galbeedka markay joogaan oo lagu xisaabtamo codkooda, oo ilaa markaa waxaweye dadka madaxweynayaasha doonaya ay markaa waxaweeye la gorgortamaan oo ay yidhahdaan xuquuqdayda maxaad ka qabanaysaa aanu kugu ridnay. ya heerkaasay marayaan. akhlaaqda wanaagsan ee laga rajaynaya maxay tahay? haddii la yidhaahdo caqliga ayaa laga qaadanaya. cuqushu waa iskhilaafsantahay, waa kala duwan tahay. gaalada iyagoo caqliya leh bay haddana waxay doonaan sameeyaan oo yacni markaa noocnaba aynay u aaba yeelin. ilaa gaalada qaarkood hooyooyinkood fuuleen. ferwedi ninkii la odhan jiray ee yahuudiga ahaa ee isaguna mulxidka noqday, jinsiga yuhuudeed wuu jeclaa waana u doodayey. marka uu leeyahay yuhuudnimada waa ku ictisaasayaa, diin ahaan ugama jeedo, wuxuu ka hadlayaa ciriq ahaan iyo shacab ahaan. markuu leeyahay marka waxa weeye halkii baan ka hayaa iyo warka caamka uu dadka u sheegay waa kala duwan yihin. inaanu ilaah rumaysnayn oo khaaliq rumaysnayn ayuu si caama u sheegay. waxaan taa ka tilmaamayaa qaar baa laga yaabaa dee inay yidhaahdaan ferwid waxuu ahaa markaa yuhuudi buu ahaa, mulxid ma ahayn. xaqiiqadu waxay tahay inuu mulxid noqday, laakiin ciriqiisa ayaa yuhuudi ahaa oo yuhuud ka soo jeeda. yuhuud markuu waxa weeye daafacaya ama wax la doonayo ama markaa waxa weeye inuu jecel yahay tilmaamayana dee ciddaw ka dhashay inay marka waxa weeye baaqi noqoto oo cidhidhigay ku jiraan ka baxaan oo ay awood helaan, yacni waa la doonaya, taa waa la jeclaa. laakiin diin ahaan diintoodu waa ka baxay. mulxid buu ahaa. nolosha gebigeedaba wuxuu u fasiray inay tahay jinsi. ya waa ninka gaadhay ninka mulxidka ee ferwid la yidhaahdaa inuu yidhaahdo ilmaha yari markuu hooyadii jaqaayo nooc jinsi uu samaynayaa. ya si alla shucuuriya ayuu waxyaalihii galmada hordhaca u ahaayoo kale markaa uu ku kacaya ilmaha yari. markuu dhabta hooyadii ku fadhiya waa saas si la-eg. wuxuu ka dhigay nolosha gebigeeduba inay tahay jinsi gebigeeduba. ya wuxuu soo qaatay qiso ku saabsan qisatu udiib oo giriigga loo nisbeeyo, oo ku saabsan marka waxa weeye boqor giriigga marka waxa weeye xukumayey ayaa ilmo u dhalan waayey. markii dambe ayaa wakhti dambe inaan u dhashay. dabeedna wuxuu u tegey markaa mid kaahina. dabeedna wuxuu yidhi ilmuhu ilmo fiican ma aha inankani, wuu ku dili doonaa, gabadhaad qabtana waxa weeye isagaa guursan doonaa. marka waxaa kuugu fiican hadda inaad disho. ferwid baa soo qaadanaya qisada. waa qisa dee khuraafo caana, ustuura. naftiisi waa siin weyday inuu dilo, oo isagu marka waxa weeye maadaama uu dhalay inuu dee nafta ka jaro waa ku adkaatay. mid raaciyuu u dhiibay oo xoolo la jooga. wuxuu uhi orodoo markaysa markaa buurtaa ka soo tuur. kiina xoogaa waa arrinkii waa ku yara adkaaday. mid kaloo isagu markaa waxa isaguna raacataa buu dhiibay. kii baa qaaday, waxaa loo geeyey boqor kalea loo geeyey aan ubad lahayn. kii baa iska korsaday, ilmaa laga dhigta. beri dambe uu weynaaday ayuunbaa lagu yidhi markaa ninkan kuma dhalin. waa lagu keeno waa lagu helay. wuxuu u tegey ninkuu u qabay inuu aabbe u yahay. qisadiibuu weydiiyey. dabeedna wuxu uhi maya waxba kama jiraan, anaa ku dhalay. arrinka xoogaa ku cuslaa, shaki ku dhac. markii dambe waa iska tegey. wuxuu iska qabtay xaggan kale ayuu isaga kacay, beledkaa kale ayuu u qabtay oo u kacay. boqorkii beledkaa xukumayoo aabbihii ahaa aanu garanayn bay iska hor yimaadeen, afka isla dhaafay. odaygii buu dilay. odayganna dadkii waa dhibayoo waxay yidhahdeen ninkaa ninka naga dila ayuunbaa dee boqor noo noqonaya. beledkii uu tegey, markii la ogaaday inuu dilay isagii baaba la boqora. gabadhii uu qabayna dee markaa halkii buu markaa u guursaday. gabadhu waa hooyadii.
boqorka uu dilayaana waa aabbihii midna ma garanayo beri dambay ogaatay habartii ay ogaatay inankeedii inuu yahay waa istishay baa layidhi qiso noocaasuu soo qaato oo qisatu uudiib baa la yidhahdaa wuxuu yidhi markii arrinkaasi dhacay waagii dambe uu ogaaday inuu aabbihii dilay diimuhu qaabkaasoo kale ku yimaadeen oo aabbihii la dilay baa markaa la doonayaa in markaa la sameeyo yacni waxa weeye la yidhaahdo wuu soo noqonayaayo markaa mala tanaasukh alarwaax iyo waxbaa la aaminsanaa dabeedna markaasaa la yidhi waxa weeye waxbaa loo samaynayaa marka asalka diimuhu noocaasay ku yimaadeen kulaha abaatil noocaasuu sheegay waxaan u jeednaa hadday Giriigga tahay iyo hadday markaa waxa weeye Hindiya tahay iyo hadday Jabaan tahay yacni qasas yacni ku saabsan hooyo fuulka ku saabsani waa ka dhaceen waana la soo naqliyaa arrinka ku saabsan markaa gaaladii carbeed inaynay markaa tan isticmaali jirin oo ay markaa hooyooyinka iska ilaalin jireen waxay ka mid ahayd baqaayaadkii diintii Ibraahim kaga sii hadhanaa bay ka mid ahayd oo ashyaabaa jiray baqaayaada oo diimihii hore ka gaadhsanaa marka gaalo badan baqaayaadkaasaa gaadhay bal hadda aynu ka eegno waxyaalaha marka hadda ay ka leeyihiin qolada markaa mulxidada ee cusub iyo xagga akhlaaqda markaynu sheegayno akhlaaq wanaagsan horta sidee lagu heli karaa maxaa akhlaaqsi noqonaya mawduuca akhlaaqda maxaynu gallaa dadka mulxidiintu waxaa jira islaamka waxay ku dhaleeceeyaan oo yidhaahdaan akhlaaq ahaan akhlaaq wanaagsan dadka uguma baaqo islaamku oo waxay leeyihiin waxaa jira milkulyamiin wax la yidhahdaa islaamka lagu yaqaanaa waxaa jira marka waxa weeye dadka mucaamala bilmisli ma sameeyaan dabeed calaa kulli xaal waxay doonaan inay markaa yidhaahdaan akhlaaq fiican kuma sugna bal haddaba markaa si aynu taa u iftiiminno ila akhlaaq bay wax ku dhaleecaynayaan oo diintii samaawigahaa doonayaan inay wax kaga sheegaane bal hadda akhlaaqdooda aan aragno si aynu u garanno farqiga u dhexeeya bididdiha tatabayanu alashyaa'u yucrafu shayu bididdih shayga lidkiisaa lagu gartaa mulxidow akhlaaqdaadu waa maxay akhlaaq wanaagsan see lagu heli karaa mulxidiintu waxay qabaan akhlaaqdu waa shay nisbi ah nisbiga waxaa laga tilmaamayaa bimacnaa dadba waxbaa akhlaaq wanaagsan la'ah marka nisbada dadka qaarkood shay baa akhlaaq wanaagsan la'ah dad kalena lama aha marka xagga casriyada iyo waqtiyaday ku kala duwanaanaysaa xagga beledaday ku kala duwanaanaysaa marka akhlaaqdii saasay noqonaysa wuxuu yidhi markaa Dawkins إنه من العسير جدا الدفاع عن الأخلاق المطلقة على أسس غير دينية كتابكيسي وهم الإله ولا الترجمي marka waxa weeye saas oranaya shay aad iyo aad u adag waxa ah in akhlaaq si deysan la daafacaa iyadoo aasaas diimeed aan lagu binaynaynin waa shay casiira jiddan aad iyo aad bay u adag akhlaaq mutlaqa maxaa laga tilmaamayaa wax mar walba akhlaaq wanaagsan ah oo aan nisbada dadka qaarkood akhlaaq wanaagsan loo odhanayn qaarna aan akhlaaq wanaagsan u ahayn qaarna u ah ama waqti ah waqtina aan ahayn ee waqti walba akhlaaq wanaagsan si itlaaqan u ah asaas diimeedun baa lagu binayn karaa yacni waxa weeye si kale looma heli karo taasi waa ictiraaf isagu qirtay mar haddaanu aasaas diimeed haynin akhlaaq wanaagsan oo mutlaqa inaanu hayn way caddaynaysa waaya wuxuu kaloo yidhi waa imaamkii mulxidiinta weeye isagoo markaa ilxaadkiisu sida uu keensanayo tilmaamaya wax qiimo leh oo itlaaqan oo markaa waxa weeye sifa yacni markaa la qiimeeyo cala alitlaaq inayna jirin yacni sheegaya akhlaaqduna inay tahay markaa waxa weeye shay nisbi ah oo nisbada dadka qaarkood akhlaaq u noqonaya qaarna aanu ahayn qaar akhlaaq wanaagsan ay u aqoonsanayaan qaarna aynay u aqoonsanayn qolo walbana sideeda loo eegayo wuxuu ka yidhi fii hada alcaalami laa yuujadu sharun walaa yuujadu khayr laa yuujadu siwa laa mubaalaatin camyaa wa cadiimati araxma caalamkan lagama heli karo wax shara iyo wax khayratoonna dadku waa iska nool yihiin
waayo mar haddaanu markaa ilaah jirin sida uu u qabo mulxidkaasi waa sida cindigiisa u qabee sida xaqiiqada ah maahe dee shar iyo khayrba ma jiro dadku xoolo kale iska yihiin miyaa la yidhahdaa xooluhu khayr bay sameeyeen iyo shar bay sameeyeen toonna miyaa la yidhahdaa yaa wax kastuu markaa xooluhu ay sameeyaan sow wax markaa aan khayr iyo shar toonna lagu sifaynayn sow ma aha sidaasoo kale weeye buuri khayrna ma jiro sharna ma jiro wanaag iyo xumaanitoonna ma jirto laa yuujadu siwa laa mubaalaa camyaa u aabayeel markaa la'aan waxaan loo aaba yeelayn oo waxba laga soo qaadaynoo indhala mooyaane wax kale ma jiraan mar hadday caynkaa tahay dee mulxid akhlaaq cid kuma ceebayn karo waayo isagaa tilmaamaya sida xoolaha inuu u nool yaho khayr iyo shartoonna aanu jirin imaamkoodii baa saa yidhi waayah wuxuu idhi faylasuufka mulxidka ah ee la odhan jiray john boll la odhan jiray wuxuu yidhi yajidu alwujuudiyu xarajan baaligan fi an laa yakuuna allahu mawjuudan cidda jirtaa dhib badan waxay ka dareemaysaa inaanu markaa waxba khaaliq jirin ilaah inaanu jirin dhib badan baa arrinkaa laga dareemaya liannahu bicadami wujuudihi tancadimu kullu imkaaniyatin lilcuhuuri calaa qiyamin fii caalamin waadix marba haddaanu ilaah jirin shay markaa waxa weeye qiyam ah oo la qiimeeyo oo wanaagsan lama heli karo caalamka lagama heli karo laa yumkinu an yakuuna hunaaka khayrun badahiyun khayr la yska garanayo khayrnimadiisa in la helaa ma dhici karto liannahu laa yuujadu wacyun laa nihaa'iyun wa kaamilun yacni garasho dhammaystiran oo aan dhammaad lahayn lama helayo garasho dhammaystiran oo aan dhammaad lahaynna dee waxa weeye khaaliqun bay u sugnaan lahayd marka mar haddaan taa la helayn yacni khayr ma jiri karo mana jirto inay ruuxa saaran tahay inuu run sheega iyo inuu been sheegaa yacni siduu doonuu yeeli karaa ya waayahay darwin laftiisu wuxuu yidhi aliimaanu alraasikhu bilwujuudi alkhaasi bimacbuudin muطalicin cala kulli shayin qad kana lahu ta'siirun facaalun cala altaqadumi alkhaasi bialakhlaaq kitaabkiisa la soo tarjamay ee nash'at alinsaan walintiqaa'i liljinsi ayaa hadalkaasi markaa ku sugayey tarjamada carabiga waxay kaga dhacdaa mujalladka 3 wuxuu tilmaamayaa iimaan raasikha oo jiritaanka macbuud yacni ilaah wax walba og oo wax walba daalacanaya la rumaysan yahay wuxuu ku leeyahay yacni door weyn buu ku leeyahay oo waxqabada ayuu ku leeyahay in xagga akhlaaqda lagu hormaro yacni akhlaaq wanaagsan waxaa laga heli karaa ilaah in la rumaysan yahay iimaan raasikha ilaahaasina markaa loo qabo wax walba inuu daalacanayo wax walba og yahay markaasaa la heli karaa akhlaaq wanaagsan waa ictiraaf ay qirteen taasina weyi wuxuu sheegay nin kaloo mulxida oo fayadoor la odhan jiray wuxuu idhi mar haddaan ilaah jirin wax waliba waa bannaan yihin in lam yakun hunaaka ilaahun fa kullu shayin mubaax wax waliba bannaan yacnii kulay ku tahay hooyadaa inaad fuusho wax waliba bannaan mulxidka kalee la yidhaahdee laa adriga ah mulxid laa adri oo la odhan jiray difiid la odhan jiray birlinsiki wuxuu yidhi isagoo hadalkaasii sharxaya mar haddii waajibaad akhlaaqiyoo la amray aynay jirin oo doonitaanka ilaahay lagu amray aynay jirin isla markaana akhlaaq sii daysane aynay jirin wax kasta oo ruuxu sameeyaa waxay noqonaysaa waxa dadka ay isla gartaan ragga iyo dumarku waayo masdar kaleoo akhlaaqda inay xukunto laga soo qaataa ma jirto mar hadday caynkaa tahayna wax kastoo dhacaaba mar hadday caynkaa taho ilaah aanu jirin wax kastoo dhacaa bannaan wax waliba waa furan yihiin wax xaaraani ma jiro wax markaa waxay xumina ma jiraan wax kasta waa la samayn karaa yacni saasay u wadaan wuxuu yidhi nin kaleoo markaa waxa isaguna mulxid ahaayoo diinish la odhan jiray ayaa wuxuu yidhi jaraa'imta iyo gaboodfalka ilxaadku la yimi si caam ah waxay ka timi fikrad markaa waxa weeye kibir ku jiro oo u arkaysa dadku inay samaynayaan qiyamka iyo waxa wanaagsan
ee aanu ilaah samaynayn yacni sharciyeyn ilaah sharciyeeyey waxa wanaagsan laga qaadan maayo ee dadkaa samaynaya dadka ayaa markaa samaynaya marka wuxuu tilmaamayaa waxa ay dadku markaa waxa weeye gartaan inay noqonayso waxa markaa waxa weeye wanaagsan ay noqonayso ilaa uu ka yidhi wabiطabiicati alxaali ida kana hunaka bacdu الnaasi غayru اlakfaa fayajibu alqadaءu calayhim min ajli taxqiiqi hadihi almadaniyati alfaadila aljanna wuxuu yidhi dabeecadda arrinku siduu yahay hadday jiraan dad markaa waxa weeye aan kuf ahayn oo wanaagsanayni hadday jiraan waxa waajiba in laga takhalluso dadkaa aan wanaagsanayn wuxuu ujeedaa dad baa ama markaysa waxaan yani waa dhantaalan yihiin ama waa laxadala yihiin ama dacafay yihiin ama waa taag daran yihiin ama waxa weeye aqoontoodaa gaaban yacni dadka noocaasoo kale ah waxa waajiba in la wada laayo si dad markaa waxay aqwiyaa oo fiican oo sarreeya oo maskaxdooda korraysa ay baaqi noqdaan wuxuu dabaqayaa mabda'ii daarwiine ku saabsanaa albaqaa'u lilaslax ya soo may tilmaamina may odhan marka waxa weeye ka markaa waxa aslaxa ee wanaagga badan unbaa baaqi noqonaya oo sida aadamigu ku yimi albaqaa' lilaslax iyo marka waxa weeye ayuunbay marka horeba ku timi marka dambana albaqaa' lilaslaxi ayuunbaa la sii xaqiijinaya marka waxaweye aadamiga dacafada ah ee taagta daran la laayo ee laga takhalluso akhlaaqda ilxaad inoogu baaqaya waa noocaas waayahay Dawkins wuxuu sheegay wuxuu yidhi carruurta uurka ku jira in la ijhaadiyo la soo tuuraa wax dhibi kuma sugnaa hadda waa imaamkii ilxaadka marba haddaan markaa xanuun ka imanaynin soo tuurista la soo tuuraayo la dhicisaynayo dhib male marna hadduu urjiif yahay yacni doofaarka noloshiisa waa ka liitaa qaar badan waxa la weydiiyo mulxidiina haddii qof aadami oo markaa khatar ku dhaco inuu dhinto halis u yahay oo uu qarqoomayo iyo hadduu doofaarkaagu qarqoomayo keebaad badbaadin lahayd qaar badan waxay yidhahaan doofaarkaan badbaadin lahaa ya waxaad ka arki kartaa nadka iyagoo markaa maqal iyo muuqaal ay ku jiraan oo su'aalaha la weydiinaayo oo ay saa ku jawaabayaan waayahay waxaa la weydiiyey Krauss ninkii la odhan jiray fisikska yaqaanay ee isaguna mulxidka ahaa waxaa lagu yidhi maxaarimta in laga sinaystaa maxay khata u tahay gef miya ruuxu markaa cidda maxramkiisa inuu ka sinaystaa ma gef baa wuxuu laysa min alwaadixi binisbati ilaya annahu khata yacni ma cadda aniga xaggayga marka laga eegaayo inay arrinkaasi gef tahay mid cad maaha ilxaad akhlaaqdu ku baaqaya waa taa waayah waxaa kaloo la weydiiyey Dawkins waxaa la weydiiyey waraysi maqal iyo muuqaal ah nadkana waa ka heli kartaane ka warran gabadha xaaska ay hadday ninkeeda khiyaamayso oo gogol dhaaf samayso ka warran wuxuu yidhi khiyaanada zawjiyada ah ee bimacnaa labada qofee isqabaa mid inuu khiyaana la yimaado oo markaa waxa weeye uu sameeyo sina la yimaado waxba kuma sugnaa sida loo waaweynanayo maaha in la yidhahdo ninka iyo naagta mid waliba ka kale ha ku kaaftoomo oo cid kale yaanu la kulmin cid kale yaanu u teginna waa saytara makruuha imaamkii mulxidiintaa sidaa yidhi waa Dawkins waa saytara makruuha qofka kale inuu markaa kaantaroolo ma aha oo khiyaarkiisa ka hor yimaado waayahay waxaa la weydiiyey mid kaloo mulxid ah oo la odhan jiray Peter Singer la odhan jiray ayaa waxaa la weydiiyey ka warran markaysaga qofku hadduu xoolaha fuulfuulo ka warran maxaa kuma sugna markaasaa waa golo sidan oo kale loo fadhiyo markaase aad loogu qosliye oo lala yaabaya markaasuu odhanaya qofku hadduu isagu doortay waxaan anigu u jeedaa qofku hadduu isagu doortay inuu sidaa sameeyo raaxadiina uu ka helayo dee inaan idhaahdo qalad weeye markaa waxa ma aha ya inaan sidaa idhahdo ma aha barnaamij telefisyon lagu waraysanaayo oo maqal iyo muuqaala ayuu sidaa ku odhanayaa nadkana waad ka heli kartaa waayahay
mulxidiinta qaarkood waxay ku kaceen dadka qaarkood inay kufsadaan kadibna ay markaa dilaan dabeedna hilibkooda cunaan ninkii la odhan jiray jifri dahmar la odhan jiray ee mulxidka ahaa wuxuu samayn jiray inuu dhallinyarada markaa waxa weeye soo sasabto dabeedna markaa guriga la tago oo markaa waxa weye yidhaahdo markaa shaqo noocaasa markaa uu kula ballamo qaarkoodna markaa waxa weeye intuu soo sasabo isagoo aan shaqada u sheegin marka dambe khasbo markuu fulfulo dabadeedna markaa waxa weeye uu dilo dabeedna tallaagadda uu ku gurto hilibkoodaba cuno mulxid baanu ahaa oo qofku marka uu diin aanu haysan sharci samaawiya oo uu aaminsan yahay aanu jirin ilaah daalacanayo arkayo xisaabayo abaal marinayana aanu rumaysnayn wax alla wuxuu doonuu ku kacayaa bes wuxuu iska ilaalinayaa qaynuunka waxa uu ku qabanayo ama inay dadku arkaan markaynay arkay wax alla wuxuu doonuu ku kacayaa 17 qof markuu marinaayey dadku markaa sidaa ku sameeyey oo markii dambena hilibkoodii u kaydsaday oo dee uu cunayo intuu googoostayba tallagada ku qurtay ayaa markii dambe ruuxu sidaa ku samaynayay ka farabaxsaday dabaddu markaysa markaa u baxay dabeedna halkaasuu ka qaydiyey halkii baa loogu yimi booliskiina markaa waxaweyn waa ugu yimaadeen qisadii buu u sheegay gurigii baa booliska soo galay waa la baadhay waxaa la arkay dadka markaa waxa weye hilbahoodii iyo lafahoodii oo qaarkood markaa meesha ku sugan yihiin qaarna tallaagadda ugu jiraan sidii baa lagu xidhay maxkamadda markii la geeyey ee la waraystay wuxuu leeyahay ilaa waraysigiisa maxkamadda la geynayey waxyaalahaasi waxay ku jiraan nadka wuxuu odhanayaa isma lahayn umuuraha waa lagugula xisaabtamaya waxaan sidaa u yeelay cid baa kugula xisaabtamaysa isma lahayn akhlaaqda horta ay ku baaqayaan waa noocaas hadday caynkaa tahay siday iyagu akhlaaq u sheegtaan siday se islaamka akhlaaq ugu dhaleecayaan Dawkins wuxuu yidhi alcilmu alطabiiciyu laysa ladayhi turuqun lilxukmi cala maa huwa akhlaaqiyun cilmiga tabiiciga ah kuma sugna agtiisa waddooyin lagu xukumo waxa akhlaaqigoo la odhanayo waa akhlaaq wanaagsan cilmiga tabiiciga ma keensanayo ina hadihi almas'alata matrukun lilafraadi walmujtamac waa imaamkii mulxidiinta arrinkaa waxaa looga tegayaa akhlaaqda ku saabsan yacni dadka ashkhaasta iyo bulshada loo daynayaa inay iyagu taqriiriyaan oo sugaan waxaana akhlaaqa waxaanaan ahayn macnaha wuxuu u jeedaa waa nisbiyatu lakhlaaqoo dadku waxay isla gartaan inay akhlaaq tahay kolba bulshada meeshaa joogtaa baa akhlaaq u noqonaysa ya kolba waxaasa akhlaaq u noqonaysa caynkaasuu tilmaamay waxaad arkaysaa calaa kulli xaal waxyaala badan oo noocaasaa jira oo ashyaa badan ah marka wax ka mida waa tilmaannay marka marba hadday sidaa tahay akhlaaqda ay ku baaqayaan waa noocaas min himaarihim tacrifuunahum midhahoodaad ka garanaysaa waxay markaa yihiin xaaladdoodu mar hadday sidaas tahay inay akhlaaq faalleeyaan ma aha idaa kaana baytuka min zujaaj falaa tarmi innaasa bilxijaara gurigaagu hadduu quraarada yahay dadka dhagxan ha ku tuurtuuri dadka guryahoodu marka waxa weeye ay yihiin markaa dhagxanta ay yihiin ama sabadda ay yihiin inaad shiiddo iyadoo gurigaagu quraarad yahay ma munaasib baa haddaad maanta o dhan dhagax la dhacayso sabadda dee waxba ka qaadi mayso laakiin adiga haddii hal dhagax lagu soo tuuro dee qabababac ya ila qarshaad ku jirtaaye way burburaysaa marka inaad akhlaaq faallayso adigoo mulxida ma aha waayah qaarkood markii la weydiiyey maxaarimta inuu markaa waxba ka sinaysto waxay markaa ku tilmaameen oo ay yidhaahdeen kollay xag ubad inay iska dhalaan ma fiicno oo caafimaadka inay u fiicnayn ninkii aynu hadalkiisa soo naqlinay waxyaaluhu ku sii darayay ka mid ahay wuxuu tilmaamay caafimaad ahaan ma fiicna oo waxa weeye markaa waayo unugyada markaa waxa weeye wiraasiga ah bay wadaagaan marka waxay dhalayaan dad daciifa ah oo
yacni hadday maxaarimtoodii marka waxa weeye ay markaa u tagaan dad daciifay iska dhalayaan oo cudurro badan markaa qaba saas aawadeed taa waxay samayn karaan inay markaa dawooyin liqaan si aynay markaa wax u qaadinoo uur u yeelan laakiin sida kale hadday markaa waxay doonaan inay sameeyaan dhib ma leh wax dhibi kuma sugna inay isfuulfuulaan saasay tilmaamayaan marka waxaa ka muuqata in waxa weeye yacni xumaantii ay saa ugu baaqayaan baa markaysa waxaa ka muuqata akhlaaq wanaagsanna aynay marka waxay lahayn gaalo fara badan waxaa markaa jira waxyaalo badan oo xunxun inay markaa ku kacaan ama qaarkood xataa ay qaaqaawan yihiin oo aynay xataa cawraad kala qarsan meelaha qaarkood baa cawaan baa ka jira cuquul waa leeyihiin iyaga saasaa la fiican dharkan iyo waxan badan ee la qaadanayo lamaba fiicna akhlaaq xun baa la imanaysaan isma laha markay qaawanaantaa ku soconayaan oo rag iyo dumar ayna waxba kala qarsanayn oo xataa ninku yacni sadohdii oo joogta ayuu isagoo qaawan soo hor fadhiisanayaan ya wax allo waxay kala qarsanayaan ma jiro caqliyana waa leeyihiin laakiin saasaa la qurux badan oo la wanaagsan waman jacala alghuraaba lahu daliilan marra bihi calaa jiyafi alkilaabi yacni ka marka waxa weeye hadduu tuka daliil ka dhigto dee wuxuu soo marinayaa baktiyada eyda iyo wax la miduu soo marinayaa meeshuu maraba haddii lala maro dee waxa weeye waxaasaa ka imanaya marka cid indhala haddii markaa tidhahda ihad waxaa ka imanaya dhibaato badan baa ka imanaya mulxidiinta badankooduna cinaad iyo madaxadayg bay ka tahay wajaxaduu biha wastayqanatha anfusahum dulman wa culuwa marka kelmaddii caawa intaas baynu ku joojinaynaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk